xafiiska marinta khatarta masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa gargaar isugu jira raashin iyo agabyada kale ee guryaha loo adeegsado u diray degmooyinka Tuluguuleed, degmada Erer, Baabili iyo weliba degmada Obare. Agaasinka waaxda digniinta hore iyo ka jawaab celinta xafiiska marinta khatarta masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Cabdifataax Maxamed Cabdi oo la hadlayay SRTV ayaa sheegay in gargaarkan uu qayb ka yahay gargaar kale ee hore u gaarsiiyeen gobolada Faafan, Daawo, Qorxi, Jarar, Doolo iyo gobolka City. maanta halkan waxaan u joognay inaan rar isugu jira raashin, bariis iyo hadhuudh yaryare, saliid iyo dhar iyo sidoo kale agabkaan cuntada ahayn ama NFI non food items loo yaqaano. Halkan wuxuu isugu jira rar u socda Tuluguuleed, 7 gobood oo degmada Tuluguuleed ka mid ah iyo degmada Erer gobolka City iyo Baabili oo isna gobolka Faafana, degmada Awbarre barakacyaal ku sugan oo barakacyaashii ka soo barakacay isku dhacyada deegaanka Andalska nahay oo iyagana raashin aan wadno. Marka rarkaas ayaan maanta halkan u joognaa. Sidoo kale waxaan rubucan koowaad ee sanad miisaaniyadka 2013 aan raashin gaarsiinay 21 degmo oo ka tirsan deegaanka, gaar ahaan gobolada Faafan, Doolo, Qorraxay, Jarar, Liibaan, Dhaawa, Shabeelle iyo City. Raashinka aan gaarsiin raashin 3242 kintaal oo isugu jira bariis iyo kan maanta ran uu ka mid yahay oo kawr ku jiro. Dhar iyadana waan gaarsiinay bundado 106 bundadood ka badan oo dhar waan gaarsiinay ilaa 250 bundadood dharana barakacyaashan Tuluguuleed iyo sidoo kale waxaan gaarsiinay iyo Qolaji. waxaa ka mid ah meelaha wax gaarsiinay maamulka magaalada Jigjiga oo dad roobkii daay barigi dhaweyd dadyo ku barakacay 500 qoys dad gaadhay oo iyadana wax gaarsiinay baa jirta. degmooyinka aanan horay gaari jirin barigi dhaweyd wax gaarsiinay ee xuduudaha ku yaala waxaa ka mid ah gobolka Liibaan meelaha fog tagnay oo degmada Qarsaadhul ay ka mid tahay oo raashin aan gaarsiinay. haddana agabkaan cuntada aan rabnay inaan gaarsiino. Cabdifataax Maxamed Cabdi agaasinka waaxda digniinta hore iyo ka jawaab celinta xafiiska marinta khatarta masiibooyinka ee dowlad deegaanka Soomaalida wuxuu intaas ku daray in gargaarkan la gaarsiiyo 22 degmo oo ka tirsan gobolada deegaanka loogu talagalay inay ka faa'iideystaan qoysas gaariya 12968 qoys. wuxuuna sheegay inaysan ahayn markii ugu horeysay gargaar ay u diraan gobolada deegaanka. waxaa kaloo rabay inaan munaasabadan uga faa'iideysto raashin rariddan iyo jawaab celintan ka sokow inay jiraan saansaan abaareed waayo roobkii waqtigii loogu talagalay ee guga dayrta wuxuu dii jiray October bilowgeeda ilaa haddana kuleyl fara badan iyo roob la'aan ayaa ka jirta deegaanka intiisa badan. walow goobo yaroo kooban uu roobka ka cururteen isagoo cadadka roobka daayna uu aad u yaraa. marka iyadana diyaar garow adag ayaa loo baahan yahay oo hay'adaha bahwadaagta iyo xafiisyada dawladda ku shaqo ka jawaabida hawlaha gargaarka bilaadanimo. taana diyaar garowgeedu waan ku jiraa. insha Allah waxaan rabnaa inaan alawsha inaan iyadana ka diyaar garowno inaan san in hadhow keys noogu noqonin dadkuna ay ku sii baraarugsanaadaan maamulada degmooyinka gobolada iyo shacabweynuhu haddii lacala ay dhacdo abaartaas roobkan uu sidii loogu talagalay u diiwaayo sida ay saadaasha hawada qalad saadaasha hawada dalku ay sheegayso roobku way xumaan doonaan bilayn dayrta goboladeenna dayrta heli jiray. dhanka kale ayixii iyaduna jira oo wax soo saarkii goboladii karanta helay ee Faafan iyo City oo kale meel wax ka soo baxeen iyagana ayixii baa iyadana saameyn ku haya oo soo badanay dalka in la qabnay iyo bariga Afrikaba. saameynta cudurkan COVID-19 uu ku yeeshay dhaqaalihii iyo socodkii ganacsiga iyaduna ka mid ah. marka waxyaabaha soo iskaashaday waxay sababi karaan cunno yaraan iyo arrimo bilaadanimo soo fool saarta dadka iyo deegaanka. marka inaan kuwaan iyadana lagu sii baraarujiyo ayadaha ku hawlan iyo dadka bayaan iyadana rabnay inaan uga faa'iideysto. maaha markii ugu horeysay gargaar loo diro gobolada deegaanka, waxaana sidan oo kale gargaar loo gaarsiiyo goobo ay ka mid yihiin barakacyaasha Qolaji iyo xeryaha qaxootiyada oo ay ka mid ah qaxootiga Obare.